Timo beerista ayaa noqotay qayb ka mid ah isqurxinta iyadoo baraha bulshada la iskula wadaagayo sawirro qeexaya ka hor iyo kadib marka tinta la beerto. Waxaana Turkiga uu ka mid yahay wadamada ugu badan ee laga hirgeliyey goobo timaha lagu beerto. Rag iyo dumar si isku mid ah dunida dacaladeeda kala duwan uga socdaalayo ayaa waayadan dambe aad ugu qulqulayay dalka Turkiga iyagoo doonaya in ay wax ka bedelaan dhinaca tinta ama quruxda wejigooda. Turkiga waxa uu caan ku yahay dalxiiska dhinaca caafimaadka marka la dhaho oo bukaanka uu u duulo waddankaasi si howshiisa uu u samaysto muddo cayimanna uu joogo kadibna uu dalkiisa dib ugu soo laabto. Muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa aad u soo badanaysay dadka intooda badan doorbidaya dalka Turkiga sabab la xiriiro qiimaha oo aad u jaban sida laga soo xigtay cilmi baaris dhowaan lasoo saaray taasi oo sheegtay in adeega timo beerashada oo idil ama isku jir adeega dhinaca timo beerista dalkaasi Turkiga uu kugu baxaya inta u dhaxaysa $1,800 ilaa $4,500 ama $4,700. Qarashaadkan ayaa waxaa barbar soconaya qaybna ka lacagaha tigidhka hoyga qofka uu degayo, la talinta iyo soo laabashada bukaanka oo iyana follow up check loo yaqaano qaybkaaba leeyahay. Turkiga waa waddan aad u soo koraya dhaqaale ahaan taasoo la micno ah in qiimaha uu weli aad ugu hooseeyo wadamada kale marka loo eego. Taasina waxa ay ka dhigaysaa in timo beerashadu ay aad u jaban tahay marka Turkiga laga hadlayo. Waxa kale oo ay kaga duwan tahay dalalka kale ee soo koraya sida cilmi baaristu ay sheegtay waa maalgelinta qalabka iyo dhaqaatiirta oo iyana juhdi badan ay ku bixiyeen, dadaal badan ay geliyeen. Si kastaba haatee iyadoo qiimaha niraahda timo beeristu uu aad u badan yahay ama uu yahay mid la awoodi karo, haddana waxaa laga dayrinaya waxyeelada caafimaad ee ka dhalata timo beerashada marka waddanka Turkiga laga hadlayo. Khubarada qaar ayaa walaac ka muujinaya in cillado badan ay ka dhasheen dhinaca timo beerista dhinaca caafimaadka marka la dhaho iyadoo weli laga soo sheegayo waxyaalo caafimaad oo aad u badan oo ka dhalanayso timo beerista. Waxaa ka mid ah in qadaadka timaha badan laga gooyo ay saameyn ka dhalato iyo timaha wejiga hore ama fooda oo si khaldan u beermaya hairline-ka loo yaqaano iyo waxyaabo kale oo iyana ay ka mid tahay xanta ama waxyaabaha barbar yaacayo hadalhaynta dhanka timo beerista. Dhammaan tani waxaa lagu yareyn karaa iyadoo loo mariyo cilmi baaris habboon oo ku saabsan nooca timaha ee qofka uu rabo, la shaqaynta dhakhtar khibrad leh iyo daryeel habboon oo dabagal kadib qofka marka tinta loo beerto iyadu daba socoto. Turkiga waxaa lagu ammaanay habka timo beerista iyadoo fanaaniin heer caalami ay dhowaanahanba aad halkaasi u ammaanayeen. Mid ka mid ah qaar ka mid ah dadka timaha halkaasi kusoo beertay waxaa ka mid ah fanaaniinta mataanaha ee reer Nigeria ee P Square ama Peter Okoye oo mid ka mid ah mataanaha fanaaniinta rugcadaaga ee dalkaasi Nigeria u dhashay uu ka mid ahaa dhammaan dadka u duulay Istanbul bishii May ee sanadkan si uu u maro qaliinka dhanka timo beerista. Waxa uu sheegay in uu ku kalsoon yahay timihiisa muddo dheer kadib marka ay tintu ka daadatay. Mr P sida loo yaqaano ama P Square waxa uu isagu baraha bulshada gaar ahaan barta Instagram-ka uu kusoo bandhigay qoraal kooban oo kaga sheekeynayo kagana taariikheynayo waxa halkaasi ku qabsaday weliba dalka Turkiga isagoo oo dhowaan halkaasi u socdaalay. Sida laga soo xigtay waxa uu sheegay in qayb gaaraysa ilaa 2,400 oo follicles waxa loo yaqaano ama tinta qayb ka mid ah iyo lagu beeray wejiga horaanta wejiga gaar ahaana fooda. Waxa uu yiri waxaad arki doontaa qaabka arrintan ay u dhaqan gashay oo ahayd mid hufan oo wanaagsan. Inta kadib isaga oo niyadda ku haya waxa la arkayay isaga oo markaasi cunayo cunno wanaagsan qaliinka ka hor. Kadib markii qaliinka lagu sameeyey lagu guuleystay ayuu soo dhigay sawir uu soo kabanayo. Maalmihii dambe waxaa la arkayay isagoo taageerayaashiisa bandhig faneed ugu sameynaya dalka Turkiga taasi oo uu kaga hadlayay guulihii qaliinka lagu sameeyey dhinaca timaha. Qoraaladii u dambeeyey ee horumarkiisa waxaa la arki karaa in uu kasoo kabsaday tintiisana ay aad u badatay ama u kobacday taasi oo calaamad u ah in uu aad ula dhacay adeega timo beerista waddanka Turkiga. Waxaasoo dhan waxaa sabab u ah buu yiri
dhakhaatiirta heerka caalami ee dalka Turkiga oo gebi ahaanba la qabsaday saaxadda dhanka timo beerista una muuqdo in ay suuqaasi iyagu gacanta ku dhigayaan muddo dhow. Turkiga oo meelaha ugu badan ee dadka ay aad muddooyinka ugu dambeeyay u gaarayeen dhinaca timo beerista marka laga hadlayo. Garoomada diyuuradaha ee Yurub gaar ahaan kuwa ay sii marayaan duulimaadyada u socda ama ka imaanaya magaalada ganacsiga Istanbul waxa caadi ahayn in lagu arko rag madaxyadoodu ay xidhan yihiin iyo kuwo xidhan koofiyado loogu talagalay dadka timaha beerta si ay uga hortagaan bararka soo wajaho qaliinka timo beerista kadib. Inkastoo xarumaha caafimaad ee magaalooyinka weyn ee Yurub ay bixiyaan adeegyada timo beerista, hadda magaalada ganacsiga Istanbul ayaa ah meesha ugu badan oo ay tiigsadaan dadka doonaya in timaha ay beertaan. Xiddiga masraxyada jilaa u dhashay Ingiriiska oo lagu magacaabo Lee Mead ayaa shaaca ka qaaday in qaliinka timo beeristu ay kor u qaaday kalsoonidiisa. Jilaagan oo 41 sano jir ah ayaa dalka Turkiga lagu sameeyay qaliin socday muddo 8 saacadood, waxaana uu si toos ah ugu bandhigay kanaaladiisa baraha bulshada intii uu qaliinkaasi socday. Diyaaradda Turkish Airlines ayaa si kaftan ah loogu yeeraa qaaradda Yurub Turkish Airlines kadib markii ay soo bateen xayeysiisyada lagu dhejiyay gudaha diyaaradaha. Xayeysiisyadaasi ay leeyihiin shirkadda fuliya timo beerista iyo sidoo kale kuwa markaasi rakaabka ee raacay diyaaradahaasi si ay Turkiga ugu soo beertaan timaha. Dadka timo beerista u aada Turkiga waxaa ka mid ah qaar ka mid ah jaaliyadda Soomaalida ee Yurub iyo xitaa kuwa ka tegay Soomaaliya. Ganacsado badan oo Soomaali ah ayaa ka hirgeliyay Turkiga shirkado caafimaad iyo kuwa bixiya adeegyada la talinta dadka doonaya in ay beertaan timaha. Shirkadda Mead Clinic waxay ka mid tahay kuwa bixiya adeegyada caafimaad, waxaana ka mid ah adeegyadooda timo beerista. Maxamed Suleymaan oo madaxa isku xirka shirkaddan oo warbaahinta la hadlay waxa uu sheegay in ku dhawaad 50 qof oo u baahan timo beerista ay bishii ku qaabilaan xaruntooda. Haddaba sarifka aan iraahday hooseeya ee lacagta Turkiga iyo khibradda caafimaad ee Turkiga ayaa soo jiidatay indhaha ajaanibta ee leh bidaarta. Ma aha oo keliya reer galbeedka ajaanibta qiimaha timo beerista u taga Istanbul waxaa sanad walba gaara Turkiga kumanaan dalxiisayaal caafimaad u taga kuwaasi oo kasoo socdaala wadamada qaaradda Afrika oo Soomaaliya ay ku jirto. Guud ahaan dhalinta ayaa qaataa muddo 3 cisho iyadoo wixii markaasi ka badan 10 cishana ay tahay in bukaanka qabsado howl maalmeedkiisa caadiga. Wasaaradda caafimaadka Turkiga ayaa sheegtay in sanadkan ay filayso 2 milyan oo dalxiisayaal caafimaad oo ay ku jiraan dadka dalkaasi u tagay qaliinka timo beerista, daryeelka ilkaha iyo arrimo kale oo caafimaad. Waxayna rajaynaysaa in dalku soo galka dalxiisayaasha dakhli dhan ay ku soo galaan ama ay ka soo xarooto lacag gaaraysa 20 bilyan oo dollar. Beerista timaha ayaa habka ugu casrisan ee hadda ay markaasi adeegsadaan dadka bidaarta leh, iyadoo in ka badan 2,000 oo qof ay markaasi beeranayaan timaha gudaha dalkaasi Turkiga. Dhinaca beerista timaha gudaha boqortooyada ayaa ku kici kara inta u dhaxayso 1,000 ilaa 30,000 oo pound marka loo eego xogta warbaahinta qaar ay soo saartay, iyadoo tani ay ku xidhan tahay inta ay la eg tahay bidaarta, nooca habraaca iyo rugta caafimaad ee laga fuliyay qaliinka. Qaliinkan ayaa u shaqeeya in dhakhaatiirtu ay timo caafimaad qaba ay ka soo qaadaan xagga dambe ee madaxa, iyagoo marka dambe kadib lagu talaalayo meelo badan oo ay timuhu ka maqan yihiin. Bidaarta ragga iyo dumarka labaduba waxay noqon kartaa mid aad u xun, buu yiri mid ka mid ah dadka arrimahaasi sharaxaya. Guud ahaan inta ayaan kusoo koobayaa muuqaalkan. Fadlan subscribe inoo saar channelkan, like garee muuqaalkan, la wadaag asxaabtaada. Waxaan rajaynayaa inaad ka bogan doontaan haddii Allaha awoodda laga helo faahfaahinta macluumaad kale oo wanaagsan.